munaasabad lagu xusayay 17 sano guurada ka soo wareegatay markii la aasaasay maamulka Puntland ayaa lagu soo waramayaa in lagu qabtay magaalada Abu Dhabi ee wadanka isku taga Imaaraadka Carabta iyadoo ay ka qayb galeen qaybaha bulshada ee ku nool magaaladaasi. Cabdulqaadir Axmed Sheekh wariyahayaga ayaa warkaasi nooga soo diray magaalada Abu Dhabi. waxaa habeennimadii xalay magaalada Shaariqa ee wadankan isku taga Imaaraadka Carabta lagu qabtay xaflad aad u balaaran isla markaana loogu dabaaldegayay sanad guuradii 17aad ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. xafladani ayaa ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay isla markaana ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada reer Puntland ee ku dhaqan wadankan isku taga Imaaraadka Carabta. waxaana ka soo qayb galay xafladani lagu xusayay sanad guuradii 17aad ee maamul goboleedka Puntland wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee maamul goboleedka Puntland mudane Shirad Jaamac xildhibaano ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ganacsato waxgarad iyo marti sharaf kale. ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay Cabdisamed Abwaan oo ka mid ahaa wasiirkii ganacsiga ee maamul goboleedka Puntland ee dawladii hore Cadda Muuse. waxaan rabaa marka horeeto inaan idinku hambaliyeeyo sanad guuradii 17aad ee ka soo wareegtay asaaska Puntland oo caawa ku beegan 1 August 2015. waxaan leeyahay hambaliyo dhammaanteen waxay noo tahay farxad weyn runtii. waxa weeye intii soo gaartay waqtigii Puntland la asaasayay iyo intii kadib dhalatayba waxay u tahay farxad weyn runtii. Puntland oo 17 sano kadib maantay aynu u dabaaldegayno asaaskeedii iyadoo si nabadgelyo ah halka ku soo gaadhay iyo horumar runtii aan la koobi karin. intaa kadib waxaan rabaa inaan halkan caawi uga mahadceliyo guddigii isku soo hawlay xafladan quruxda badan. waa arrin mudan in mar walba lagu celceliyo jiilka cusub waxa la rabaa in aad loogu beero wadaninimada Soomaali jacaylka wadajirka. waxa la rabaa kaalinta dadka uu leeyahay dhalinyarada inay aad u qaataan. waxaan aad ugu bogaadinayaa dhalinyaradii fanaaniinta ah ay aad uga hadlayeen heesaha wadaniga ah oo runtii mar walba muujinaya dareenka saxda ah ee dadka ay sitaan. waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa in madaxdii halkan ka hadashay badankoodu ay aad ugu carabka ugu dhufteen sidii midnimada loo adkeyn lahaa. nabadgelyada ka jirta Puntland horumarka ka socda kuma imaan cayaar. waxaan aad iyo aad inigu boorinayaa inaad dadaalka aad ugu jirtaan midnimadiina iyo wadajirkiina inaad xoojisaan. hambaliyo Puntland iyo Soomaaliya ha noolaato. waa maasantiin. Puntland waa hooyadii federaalka waa hooyadii ummadda Soomaaliyeed hore ugu sheegay waa meeshii Soomaaliya oo dhan soo dhaweysay dagaaladii sokeeye ka soo daarnahay dawladda Puntland. dadaal badan baanu haynaa waa shaqaynaynaa waxaanu jecelahay dalkan inaan horumar gaarsiino. hase ahaatee markaa Facebookyada iyo baararkaysa ee fadhi ku dirayna aragno mar walba waana la haaraamaa oo waxa la yiraahdaa dawladdu waxma qaban. maalin dawladda boosaaso jooga ayaa nin saaxiibkay oo wasiir la hadlaya waxaan yiri araboorkii boosaaso iyo dekedii iyo dariiqyadii iyo JPLG magaalooyinka intercities-ka hawlo fiican oo qurux badan baa ka socday. war dadka reer Puntland maxay raadinayaan iyo ummadda Soomaaliyeed wuxuu yiri ma maqashay wiil hooyay bari weyda markaas tilmaano aabaha alla ma tusin. xafladani ayaa ahayd xaflad si heer sare loo soo agaasimay isla markaana ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada reer Puntland ee ku dhaqan wadankan isku taga Imaaraadka Carabta. Cabdulqaadir Axmed Sheekh raadiyaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Shaariqa.